inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. degmo xuduudeedka Doobley waxaa ka dhacday musiibo aad u naxdin badan oo ku habsatay qoys danyar ah kaasoo ay gabar 3 sano jir ah ay ku dhimatay ka hor markii ay sababsatay moobeel ku qarxay waxaana gabi ahaanba qoyskaasi Soomaaliyeed ay sidoo kale ku waayeen hooygii ay deganaayeen hooyadani Soomaaliyeed iyo caruurteeda oo ka koobnaa 8 caruur ah. dhacdadani xanuunka iyo murugada xambaarsan ayaa ah qoyskani in aysan caawa haysanin meel ay u hoydaan sidoo kalena wax ay quutaan male mana jirto arad ay gashtaan waxaana qoyskani soo food saartay xaalad nololeedtii ugu darnayd. hooyadani ayaa markii horeba waxa ay ka timi xeryaha qaxoontiga Dadaab waxaana ay hadda ku sugnayd kaamka barakacyaasha. qaar ka mid ah dadkii u soo gurmaday qoyskaasi ayaa ka warbixiyay sida ay wax u dhaceen kana codsaday in ay qoyskani loo kaco waxaana hadalladoodii ka mid ahaa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. waxaan waxa meesha ka dhacay masiibo uu Ilaahay keenay wixii Ilaahay ku keenay alxamdulillaah rabbil caalamiin baa la yiraahdaa muslim baynu nahay. reerkan saaka nabad buu soo toosay 4 saacna geeri ay guri gubtay oo baaba'ay ayaa la kulmay. marka waxaan leeyahay muslimiinta walaalaha meel kasta ay joogaan horta waa inay u duceeyaan. gabadhan way xanuunsan tahay waa garoob aabii hooyada ilmaha u ahayd. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. maanta waxa ka dhacday magaaladan Doobley khaasatan Dawadaag musiibo ka dhacday xaafadan saad u jeedaan way gubatay waxa ku dhintay ilmo yar saqiir oo 3 jir ah. xaafadan iyo dadka degan waxay ka soo barakaceen qaxoontiga waa maamo haystay 8 ciyaala wada arkaysaan maanta guriga ka gubtay dhammaan wixii haystay agabaha uu gubtay kuwaas dhammaan dabka leefay. walaalaha muslimiinta waxaan ka codsanaynaa meel kasta oo joogaanba inay u soo gargaaraan khaasatan kuwa Jubbaland iyo kuwa kale iyo waliba maamulka Doobley. insha Allah waxaan jecelahay culimada diinka in loo soo gurmado xaafadan ay xaafad musiibo ku habsatay maanta oo gubatay ilmo yar oo saqiir oo gabar oo 3 jir ah gubatay. marka xaafadii iyo guri deyrkii dhammaan way wada gubteen. marka insha Allah waxaan jecelahay in loo soo gurmado reerkaani saan idin sheegay ka hor boqortooyadu ka soo guuray waa maama 8 ciyaal haysta maanta xataa wax qabri lagu qodo lama hayo wax raashin oo la cuno lama hayo wax alaabtii way wada gubatay. marka walaalaha muslimiinta waxaan ka codsanaynaa inay u soo gurmadaan. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. waartan sida ka dhacday meeshan gurigan qof baa ku dhintay gabar baa ku dhimatay jira no waxaan nahay raadish dambaariyaasha ka shaqaynayay maana joogo goobta waxaana loo sheegay in uu telefoonka ka kacay sida loo sheegay way gurigan gubtay telefoonka reerkan qaar ka soo barakay ka yimid qoyska ka soo laabtay dhagax leey sida loo sheegay in uu day halkan deganayeen dadka tawaarashan bay hayeen haddana musiibo ku dhacday. aan ku codsanaynaa ummadda islaamka meel bay joogaan in la soo caawiyo dadkan masaakiinta meesha ku baaba'ay. walaalaha muxsiniinta ah ee jecel garab istaaga dadkeena kuwooda u jilicsan waxa ay hooyadani Soomaaliyeed oo haysata caruur aagoon ah iyo kuwa lagu deyriyay ay ahayd qof markii horeba u xamaali tagta ilmaha taasina waxa ay sababtay in ay ku weydo guri dambaystii reerka maadaama ay hooyadani aysan haysanin cid ka maaraysan nolosha caruurteeda.